بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون وزارة gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay cambaaraysaa weerarka argagixiso ee maanta ka dhacay xerada tababarada oo tiro dhalinyaro ah ku dhaawacmeen kuna geeriyoodeen. Weerarkaasi foolxumada ah wuxuu beegsaday dhalinyaro u diyaar garoobay nolol cusub, waxbarasho iyo inay u adeegaan dalkooda iyo dadkooda. wasaaraddu waxay u tacsiyeynaysaa ehelka iyo qaraabada dhalinyaradaasi. inta dhaawacantana waxay u rajeynaysaa caafimaad degdeg ah. Jamhuuriyadda Soomaaliya haddii Ilaahay yiraahdo wadaday ku socoto argagixiso kama weecin doonto. hore bay u soconaysaa. horumarka dalka ama naf dad la gooyo ama hanti la burburiyo uma istaagayo. wasaaradda gaashaandhigga waxay ka codsanaysaa ummadda Soomaaliyeed inay taakuleeyaan waalidiinta dhalinyaradaasi u diyaar garoobaysay inay noqdaan saraakiil xigeenno iyo saraakiisha mustaqbalka dalka, ehelkooda iyo qaraabadooda. sidoo kale inta dhaawaca isbitaalada ku jira in loo gurmado. wixii annaga karaankeenna waanu taraynaa, waanu qabanaynaa. hay-adihii kale dowladdana shaqada ku leh waxaan ka codsanaynaa wixii dalkan lagu daaweyn karina dibadda si degdeg loogu qaado. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.